mudane xasan sheekh maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa kulan la qaatay Remy Marshall danjiraha dawladda Faransiiska ee u soo magacawday Soomaaliya kadib markii uu madaxweynuhu ka gudoomay warqadiisa aqoonsiga safiirnimo. Kulanka ay wada qaateen madaxweynaha Soomaaliya iyo danjiraha dawladda Faransiiska ee Soomaaliya u soo magacawday waxay kaga wada hadlayeen xiriirka dawladaha Faransiiska iyo Soomaaliya iyo sida ay dawladda Faransiiska u dardargelin lahayd dadaalkeeda ay ku horumarinayso dalka Soomaaliya. waxaana goobjoog ka ah kulankaasi wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya iyo saraakiil ka tirsan xafiiska madaxweynaha. wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda Soomaaliya Fawziya Yuusuf Xaaji Aadan iyo Remy Marshall danjiraha dawladda Faransiiska ee Soomaaliya ayaa si wada jir warbaahinta ula hadlay kadib markii uu soo gabagaboobay kulanka uu madaxweynaha dalka la qaatay safiirka dawladda Faransiiska ee Soomaaliya. ugu horeyntii Fawziya Yuusuf Xaaji Aadan wasiirka arrimaha dibadda ee dalka ayaa ka warbixisay waxyaabihii ugu muhiimsan oo ay ka wada hadleen danjiraha Faransiiska iyo madaxweynaha Soomaaliya. waxayna sheegtay in madaxweynuhu uu ka aqbalay safiirka Faransiiska inay dalka Soomaaliya maalgashi ku sameeyaan. safiirku maanta wuxuu inoogu yimi inuu waraqaha dhiibo isla markaana cilaaqaad dardargelina oo xagga dhaqaale xagga ay waxyaalo badan gacan inaga siin doonaan wadankana ay maalgelin ku sameyn doonaan inuu madaxweynaha kala hadlo. aad baynu u soo dhaweynay madaxweynuhu si fiican buu ugu ballan qaaday in ma garanaysaa ay diyaar u yahay dawladda Faransiiska aad ugu soo dhaweynaya dalka inay maalgelin weyn ka sameeyaan. waxaan rajaynaynaa in guul ay ku dhamaato heshiisyada aan geli doono kuwa horena aynu lahayn dib loo cusboonaysiin doono. aad baan ugu soo dhaweynaynaa safiirka Faransiiska iyo dawladda Faransiiska oo maanta qoraaqahoodii ay dhiibeen inay dalka Soomaaliya cilaaqaadkii aad loo dardargeliyo. Soomaaliya qudeeda Paris waxa uu jooga hadda safiir cusub oo loo magacaabay oo sii hayn doona. marka waxaanu aad ugu faraxsanahay safiirka imaanshihiisa. Mr. Remy Marshall oo dhankiisa ka hadlay kulanka uu la qaatay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa tilmaamay inay ka wada hadleen dardargelinta dadaalka ay dawladda Faransiisku ku horumarinayso Soomaaliya isagoo carabka ku adkeeyay in dawladda Faransiiska ay Soomaaliya ka caawinayso dhinacyada siyaasadda iyo dhaqaalaha. Had the opportunity this morning to meet the president and to present my credentials to become the new French ambassador accredited in Mogadishu. waa farxad iyo fursad in madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya aan kula kulmo xarunta aqalka madaxtooyada. waxaan gudoonsiiyay warqadayda aqoonsiga ah wuuna iga aqbalay. waxaana ahay danjiraha Faransiiska u fadhiya arrimaha Soomaaliya. waa arrin muhiim ah maxaa yeelay dawladda Faransiisku in muddo ah waxay door muhiim ah ama galaangal ay ku lahayd taageerada shacabka Soomaaliyeed muddo ka badan 20 sano. dadaalka dawladda Faransiiska ay ku bixinayso in la taageero dawladda Soomaaliya waa mid muuqda. Faransiiska waxa uu taageeray howlgalka AMISOM ee Soomaaliya iyo waliba degnaanshaha dalka Soomaaliya. sanadkii tagay lacago gaaraya 100 milyan oo lacagta Yuroga ayaanu ku bixinay horumarka dalka Soomaaliya. taasina waxay qayb ka tahay dadaalka dawladda Faransiiska ay ku doonayso in la taageero Soomaaliya. madaxweynaha Soomaaliya ayaan kulamo la qaadan doonaa si aan meel isla dhigno qorshayaasha la xiriira dardargelinta wada shaqaynta labada dal. We want to get more involved also on the bilateral base. muddooyinkan dambe waxaa sii xoogaysanaya cilaaqaadka diblomaasiyadeed ee dawladda Soomaaliya kala dhaxeeya bulshada caalamka iyadoo dawlado badan oo caalamka ka mid ah ay safaaradahooda ka furteen magaalada Muqdisho. dawladda Faransiiska ee safiirka ay u soo magacawday Soomaaliya oo madaxweynaha dalka ka aqbalay warqadiisa aqoonsiga danjirnimada waxay ka mid tahay dawladaha cilaaqaadka wanaagsan oo kala dhaxeeya dalka Soomaaliya. Sacdiye Maxamed Xasan raadiyaha iyo telefishinka qaranka Soomaaliya Muqdisho.